السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي تعلنا هاي سلامينا ما شاء الله. مركوبات هي مر لغد بسود وهذا ما شاء الله. أنا قا أقصك كي ودوه يا أصحاب أقول أنا أقاعد ودونا هذه سود وهذا وحي رأي جينا فكر كينا حسنا وسقرة نلو ذاك هذه وحاوبها تينو سؤاله نويدية رجالنتيني أنا لا دبتها نانترتين هل مرة بحنا قابلينا إن شاء الله هذه وحن كلا هذا السلامين دمان شعبك يدوينها وروح لبدن الصوماليات الرحمن أها ميل على ماشي جوجانها بركة يوهنا بدي له كارهان وحن سلامنا بهذا يوتيوب ليده أنت كحرن تيم يقولني وضد بدن وأدون كمال كستكل الجوجة تيم قولي يقولني إن شاء الله الرحمن وأنا هرب الله عندنا بإذن الله عواني فردوسو هدي رب عليك النقطة هذه إن شاء الله ما أنت حاول صفر السماي مالمهن فامي المالمهن لو ودودي أو براها بالشدة اللي دحودي قبل ولا شينا iyo odaygeeda hadayna kala tageen iyo is qabaan inagu ma cadeyn karno waa odaygeedii ma dhihi karno ma ahana ma dhihi karno aad iyo aad laakiin waxa family inay ahaayeen isku fiicnaayeen social media ayagu isla jira soo wada galeen ayagu iskaaya bareen ayagu isu kaaya sheegeen ayagu isu kaaya ogeysiiyeen inay isqabaan min iyo xaaskiisi isu yihiin dad isjecel isu yihiin dad iswanaajiyo wanaag ka dhaxeeya isu yihiin dad maxaan ku iraahdaaye kaftan iyo sheeko iyo jacayl iyo marxalado badan soo maray oo ka sheekeeyey oo dadweynaha la wadaagay haddana ayay ahaayeen runtii habaryare inta badan horta waxaa qurux badan bini aadam baynu nahay qalab baa imaanayo carab iyo waxaa la yiri ladan ama carab iyo ilka isugu dhow iyaguna way isqaninaan way isqoomaan ibni aadam baa leeyahay waa la isqoomayaa haddana reerku markuu reer dhisan yahay oo maxaan ku la wada degan yahay lama waayo khilaaf lama waayo hadal lama waayo buuq lama waayo barbaleem laakiin maxaa fiican oo wanaagsan in ay dadku iyagu arrintoodu xallin karaan dhamaysan karaan oyna qolkooda jiifka ay soo dhaafin social media hadday arrinta iskaba dhaafba waxa weeye wax lala yaabo xitaa fiiri waxaa jirto gabadhu iyo wiilka isqaba markay isqabtaan arrintooda iyaga xalisto wixii ayaga ka bato ehel baa la gaarsiin jiray social media ma ehel buu inoo noqday ehelkaasaa isu imaan jiray ehelkaasaa dadka kala dhexgeli jiray ehelkaasaa dadka maslaxo keeni jiray haddii labadii qof ay kala tegayaanna ehelkaasaa kala diri jiray haddii ay sii wada joogayaan oo sii wada noolaanayaan ehelkaasaa dhexgeli jirayoo xaal iyo xumayn weliba inta la kala qaato yaa oo gabadha la wanaajiyo oo wiilka maskaxda loo dejiyo oo la israali geliyo oo iyagoo isku faraxsan reerkii baa albaabka laga dejiyaa gurigoodina dib loogu celiyaa aad iyo dhaqan Soomaali oo fiican baynu oo wanaagsan baynu lahayn dhaqankeeni ma wuxuu ku dambeeyay in social media arinteeni guriganagi ka dhacday jiifkanagi ka dhacday qolkanagi ka dhacday jikadeeni ka dhacday ilmaheeni dhexdoodii ku dhacday yaa inaa haddana social media ha keeno innagoo markii hore carruurta ka xishoon weynay innagoo marka xigto aanu ka xishoon weynay xitaa in aan daaradeeni la soo istaagno hadalkii waa ka xishoon weynay oo qolkeenni kala soo baxnay annagii oo faamiligeenni iyo dadkeenni aanan waxba ogeysiinin bal ay social mediahu ka ogaadeen bal hadda eeg faalxumo ka weyn ma jirto gabadhaadii ama wiilkaagii social mediahu ka hadlayay oo yuu hadal hayay gabadhuu qabay yuu hadal hayay xaaskiisii yuu hadal hayay cadradiisii
yuu hadal hayay gabadhuu lahaa waa ku jeclaha horta aniga faamilada hal ku jira maasha Allah dad wanaagsan oo arkay baa ku wada jira yes dad fiican oo aniga aan ku riyaaqo baa ku wada jira laakiin waxa iska badan ma taqaanaa nimcada qarsada buu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam nimcada iyo wanaagga waa la qarsadaa sax ma aha inaa social media banaanka la keeno ilba iska jirta carab baa jira wax kasta jira qofkan bini aadan baatiino malaa'ig ma tiidin oo bari baad isku dhici kartiin nacam waa dhacdaa ha marka haddaad farxadiini keenteen bal xumaantiina ka ilaaliya sax bal farxadiini aragna xumaantiina naga ilaaliya farxadiina oo la tusa wala aad baan uga murugoonaa waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay khadar waa nin waa wiil Soomaaliyeed aad iyo aad haddana waa abwaan Soomaaliyeed waa hal abuur Soomaaliyeed runtii anigu maskax badan iyo fikir badan oo qurux badan baan ku tuhumayaa waxaanu isleeyahay yaan la isceebeynin yaan la isceebeynin hala kala xishoodo waxaan leeyahay hala kala xishoodo xishoodku waa wax aad u wanaagsan xishoodku dadku waxbuu ka reebaa xumaantu kaa celiyaa waxaan leeyahay fahiimo waa gabar aad wanaagsan gabar qalbi fiican aad iyo aad runtii aan hadalladeedu jeclahay aan dhageysto in badan aan dhageysto runtii waa inta isagu xitaa uu ku ammaanayo isagu xitaa uu sheegayo annagu xumaan kolley anigu warsan ahaan xumaan kama aana maqal ku aflagaadeyni ama ku aflagayo laakiin shaydaan baa iska jiro codadkan la isu soo baahinayo codadkan la isu soo dhigayo midka kale uu soo dhigayo erayo hore weeye erayo dambe weeye erayo saana weeye la isleeyahay waxaa qurux badan inaa isu qarisaan wanaagga hore xasuusta aad iyo aad iyo intii wanaag idinla soo dhex martay runtii maanta haddaan ingiriiska idinla joogno kolley anigu waa soo raadin lahaa wallahi alcadiim maanta laakiin Canadaan joognaa habeen weeye Torontoan joognaa annaga sida waxaan ula socon jiray kolley way arki jireen kumentiyada sidii musalsal baan ula socon jiray sheekadooda ilaa iyo haddana waan la socdaa aad iyo aad wadnaha ay go'an wallahi bila maanta igu horeysay reerkaas khilaafkooda aan maqlay maantana marba mid baan u cararaa xaggiisa waa isdhahaa talo kan maya wallahi inta badan waxaan isdhahaa habaryarey keebaa wanaagshida maya fahiimo waad dhageysatay khadarna maxaad ka dhageysan hadda labadooda keebaad aamintaa keebaad raacdaa keebaad run weeye dhahdaa anoona yacnaha midna maanta u hiilinaynin oon garabna siinaynin midnaba oon dhehaynin kaasaa saxan kaasaana qaldan aan lahayn haddana waxaan isdhahaa talow haddaad iyada fahiimo dhageysatay khadarna maxaad kala kulmi doontaa anigoo nafsadeyda shakinayaan haddana kii kale hadalkiisii dhageystaa mise waaba ka daro dibidha marka idiima fiicno idinkana idiima fiicno annagii social mediaha ku jirnayna inooma fiicno iyo soomaalinimo iyo qoysnimo iyo nooma fiicno midnaba laakiin raxmaynaa emotional baan ka noqonaynaa bini aadan baan marba qof baan la jirin waxaan dhihi lahaa ugu dambeeyaan la jira maya wallahi aniga runtii waxaan isdhahaa waa lagu dambaabayaa aniga run haddaan iska sheego haddaan fahiimo dhageysto runtii waan la qiroodaa aad iyo aad because fahiimo dhib badan ay sheeganaysaa haddana markii aan dhageysto qadar aan dhageystana khadar waa la qiroodaa waan u garaabaa khadar okay keebaad u garaabi keebaad daysaa waa tanna haysato confuse baan ku noqona والله العظيم خضر بان دغيسنا waxaan dhahnaa waa runo waa nacam wareernay waan baxnayo waxaan dageysanaa fahiimo waxaan dhahnaa alla ilaahay fahiima saxan marka labadeennii dhinacba waan ku wareernay labadeennii garbood baa tihiin wallahi alcadiim caawa hadaynu aan joogno ingiriiska aan idinla joogno waan idin soo raadin lahayn waan idin imaan lahayn waan ogaan lahayn marxaladda meesha ka jirto bal waanu ka odayeen lahayn waanu idin weydiin lahayn dhibka dhexdiina maanta yaalo laakiin arrintiina xalkeedii waxaad u aragteen inaad social media soo dhex dhigtaan ma aha inaad social media soo dhex dhigtaan waa idin baryayna intaas idinka baxday in kale ayaysa idinka bixin siiba khadarow nin ilaahay haydin asturo ceebtiina la asturo wanaaga aad isku soo qabteen eenu annagu muraaqoonay
ilaah baan ku dhartay reerkaasaan ku faani jiray aad iyo aad subxaan qof kastoon arko waan u sheegi jiray xitaa reerkaas maad aragteen gal halkaas iyo halkaan ka galban dhihi jiray 100 qof aan kilibyadooda u diray ilaahay igu ogyahay qof walba oo kilibka u diray waxaan dhahaa labadan qof oo kale miyaa la arkay oo lama maasha allah wallaahi bilaa lama maqal khadar tisaan u hayay waxaan idin leeyahay saas idinkama naafileen meesha maantana istaajiseen waa meel aad u aad iyo dadku way isku dhacaan anagu maxaa la isugu dhacay malihin laakiin waxaan leenahay yaan xumaan social media la isu marin aad iyo taas way anaga taan ka duulayno waa run wallahi hadduu khadar xumaan leeyahay tii asturi lahayd baa tahay waa run fihimoy badda doon buuxda badda maxaan ku idhahdaa khadarow fihima hadday xumaan leedahay ninkii asturi lahaaba ee wanaag idin soo maray ku iloobi lahaa ee wax walbaba fiirin lahaa gabadhaas walaashiisa ee shalay uu jeclaa iyaduna ay fiiriso ninka walaalkeeda shalay ay jeclay waa run waxa way mar waa la wada dhashay oo dad Soomaaliyeed baa leeyahay aad iyo marna waxa weeye waxaad noqoteen dad waxaasoo dhan isaga sokeeyo aad iyo ma fahantay dad waxaasoo dhan isaga sokeeyo bal haddaad waxay soo dhali lahaydeen waxaad noqon lahaydeen dad dhiigooda iyo dhacaankooda isku darsamo isku baxay waa run laakiin hadda inagu waa iskaga kaaya sokaysaan laba qof isaga kaaya sokeeyaa tihiin waxaan idinka codsanaynaa joojiya arrinta annagana qeyrahana gelinina qalbiyadaha naga xumaynina faamilaan aada u jeclayn baad ahaydeen ilaahay waxaan idinka baryaynaa hadduu khayr isugu kin jirana inuu ilaahay isku kii soo celiyo oo hadday sheekadaas run tahay anagu baraankiga aragna oo wax kasta aragna waanu wareernay wax runa baanu meela wax u qaadna waan garan la'nahay bal idinku meel idinku jira kala teginaana ilaahay khayr ha idinku dare oo ilaahay sida aad jeceshin khayr ha idinku dare bal hadda hala joojiyo waxaan la wado baraankii ahaataa iyo wax kale ahaataaba arrimihiina social media ha ka joojiya programyo kalaan soo wadnaa insha allah oo dad badan soo geli doonaan oo call ah oo telefoon ah oo dood ah doodaasna way soo socotaa dad badan baana ka qayb geli doono waxaa idinkaga tegaynaa oo faamiliyada ka samayn doona insha allah waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa anagoo ah tiim guul iyo gobonimo share iyo like iyo commentiba waa xageena anigoo warsan sheekh maxamed iyo Firdawsi Ismaaciil janal way janal ka daawanaysan waan jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh